السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالوا أسود وهذا ما أنتوا حاسة سنينا إن شوكولات كيك شوكولات كسمسن iyo chocolate nutella هذا سيدا ugu maarmi kartid nutella هذا oo suuqa lagu gado oo dhalooyinka ku jirto sida ugu maarmi kartid oo nutella sida ugu fudud oo u samaysan kartid oo ugu macaan oo ugu fiican hadda waxaan samaynaynaa keega horumarsanaynaa halkan waxaan ku soo qaatay 5 xabo ukun ah 5 xabo ukunta waxaan rabaa qaybta jaalaha inaan wax yar iyo sokorta isku garaaco oo dare aan qaybta jaalaha ku shubo qaybta cadaanka iyo sokorta isku garaacaya marka hadana waxaan rabaa inaan ku shubo qaybta jaalaha ka bacdi wixii kale ku dar lahaa ku daraya marka isla socon insha Allah way iga dhaxdaata qaybta jaalaha qaar iga dhaxdaata laakiin waxaan rabaa marka hore inaan makiinada cabitaanka ku soo shiido marka dan waxa asira baashan oo han mixerka ku shiid marka tan ku garaaco ka bacdi waxaan ku darayaa sokorta bakeeri halfkiis maadaama chocolate aan rabo inaan kor uga daadiyo waxaan soo qaatay bakeeri halfkiis sokorta waxaan ku darayaa bakeeri halfkiis wax yar aan ku daray oo ku xumbeysay ku garaacayaa ukunta qaybta cadaanka ah hadana half kala rabaa inaan kor kaga daro markaan ku daro يعني wax walba ku yaryareenaya marka half kale hadana kor kaga daray waa bakeeri halfkiis aan si kala gooyay marka adi macaanka sokorta hadii arto ka badsan kartaa keega hadii arto ka yareysan kartaa marka sida caadiyanka keega marka ukunta 4 xabo iyo wax ka badan ku samaysanaysid bakeeri sokor amla qiyaasta lagu darsaa ama bakeeri wax yar dhiman qof karabana uu ka badsadaa bakeeri half inta ka badan uu ka dhigtaa laakiin ani waxaan jeclahaa bakeeri marka maadaama uu yaraa bakeeri halfkiisa ka dhigtay keega 4 xabo hada 5 xabo ukunta oo qaybta jaalaha ku soo darsaday sokortana waan ku darsaday marka saliid xataa waxaan ka dhigayaa bakeeri halfkiis marka wax walba waa soo yaryareenaya sifo oo yani hadhow chocolate raba inaan kor kaga daadiyo chocolate nutella aan ka hagaajinayo yaa raba kor inaan kaga daadiyo marka macaanka inuu ka bato ma rabo macaankiisa hal dhinac inuu u jeedaan rabaa caanaha xataa haaf yar ka soo dhigay waa sokorta iyo caanaha iyo saliida waa isku mid waa haaf yar taas saliida xataa intaas ka soo dhigay marka saliidan haafkaas ka soo dhigay intaana si fiican isku qasaya waxaan ku darayaa markaas laba bakeeriga shaaha oo sokor bakeeriga shaaha oo lagu cabiro sokorta iyo ku soo cabirinaaye labadiis oo bur ah marka labadiis oo bur ah markaan ku daro xabada burka bakeeriga oo horeeyo ku qasaya bakeeri kale ku xigo markaan ku shubo waxaan ku darsanayaa bakinkana qaadada si fiican uma buuxdo wax yar qaado oo wax yar dhiman waadi zaid mu buuxinayo qaadada wax yar saa ugu soo darayo marka isla socon insha Allah channel subscribe daha share iyo like iyo comment sida quruxda badan comment u soo qorteen ay dhiirigeliseen aad ugu mahadsantihiin daawashadiina aad ay kaga mahadcelinaya asxaabta cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale iyo mar saddexaad qalbi furan soo dhawaada waxaan ku darsaday koobka u horeeyay koobka labaad aan dhahay afwan iyo bakinkii hadda ku daray baking powder hadda ku daray marka intaan si fiican hadda soo dhaxgelinaya marka intaan ku qaso waxaan ku darayaa chocolate ka budada oo cocoa butter ka cocoa butter ka hadda ku darsanaya cocoa powder butter inta u dhaweeyaa maanta dhan marka hadda ku darayaa asagana markaan intaan ku walaaqo inta kale inta markaan ku shaqo inta kale kor kaga darayaa marka qaado 4 qaado waxa isticmaalaya asagana chocolate asagana 4 qaado ka isticmaalaya marka isla socon insha Allah marka intaana si fiican isku qasaya insha Allah markaan qaso inta saas uu noogu dhan yahay keegeena marka saxanka dhalada raba inaan ku shubo marka intaan si fiican u qaso saxanka dhalada raba inaan ku shubo markaas la socon insha Allah marka qiyaasta iska saxda keegaagu ku saxmaaya quruxu noqonaya oo ku fiicnaanaya
carfisadii hilmaamo waxay balaayo ka taagantay agteedayna taala waaba iska hilmaamaba marka koraan kaga darsaday hadda dhimarkeen guli qasitaankiisa maana dhammaynin marka wixii ku agyaalaada arkaynin marka qaar marka hadda waa dhameeyay qasitaankiisii waxaa rabaa baaquliga saxanka dhalada inaan saliid soo marsado iyo bur yar soo mariyo oo maxaa la dhahay ku shubo saxankeena waa soo diyaarsaday keegine sida quruxda badan adeeg zaid ma ahan jileec biyo ma ahan wax yar oo si macquul u karaayo u noqon doona insha Allah saas rajeynaya marka sidaasaan hadda kusoo dhammaynaya insha Allah oo hadda foornada ku gashanayna foornada way isii shidan tahay foornada oo kulul haddii aad gelisid yani wuu isla sii jaan qaadaya oo marka hore waa inaa hoos u shidaa ilaa 5 daqiiqo camal inuu hoos u shidnaado marka 5 daqiiqo camal hoos u shido ka bacdi waxaa la rabaa inaa kor iyo hoos ka shidid yani qof walba foornadiisa si u shaqeysaa marka kor iyo hoos ka shidaysaa markaas bas suuqu ama qaado kor wax badan kama qaado dabkiisa inta ugu badan waa hoos inuu hoos ka kara waa muhiimada oo hoos ka soo qalalo marka hoos kor dhaqso ka gaduudanaya marka hadana foornada gashanayna intuu foornada ku jiro waxa sameysanaynaa looski Nutella sida loo sameeyo marka hadana looskan waan soo dubay qaarna qolofta ka soo qaaday qaarna qoloftiisu qabaa marka waxaan rabaa makiinada inaan ku shubo oo ku soo shiido marka ayada shiido yaa waxaan rabaa waxyaabaha kale ku darsan lahaa inaan ku darsado marka hadda shiido waxaan ku darayaa hal koob oo caano boora ah caanaha budada ah hal koob waaye caano buda ah yaa ku darayaa waxa kale ku darayaa hal koob oo caano ah ayagana caano boorada ayagana oo qasan hal koob ayadana oo rasiin aan ku daray marka inta hadda isku shiido hadane waxaan rabaa inaan ku daro cocoa butter-ka asagana oo borderka oo 4 qaado ah bakeeri saliid ah bakeeriga saliida half aan ku hormariyay intaas rabaa inaan isku shiido marka isku shiido half saliidana dib aan uga darsanaya marka half saliida marka dib uga daro waa sida ugu fudud u sameeysan kartid Nutella gurigaaga marka half saliida kala dib aan ka isticmaalaya ku darsanaya hadartan waxaan ku darsanaya koob wax yar dhiman oo sokor ah bakeeriga wax yar u dhimay wax sadama dhino aan ku daraya ku shiidaya marka macaankeeda lagama sheekeyn karo marka way shiidmaysaa xogo weyn yara culus tahay waa soo shiiday si fiican u soo shiiday marka hada sidaas ay noogu dhantahay wax adeeg ama ahan yani markii cabaar la dhigo hada oo fridge hada qaybta hoos la geliyo adeeg fiican uu noqonayaa sida adeeg zaid ma noqonayo wax yar oo fiican uu noqonayaa marka hadii aad u maleysid bibiya hada bibiya ma aha uu iska fiican ma wax yar oo normal oo jiracsan marka hada fridge baa la gelinayaa fridge marka la geliyo xogo maadaama saliid iyo caano iyo wax ay ku jiraan wuu fariisanayaa fadhigiisa fadhi adeeg oo dhagax ma noqonayo wuxuu noqonayaa fadhi yar oo iska normal ah sida quruxda badan ee noogu soo baxday waa Nutella aan laga sheekeyn karin caafimaadkeeda aad hubtid waa waxa hubtid wax gasac ku jira iyo wax meel laga soo sameeyay aan qaanin ma aha looska sida ugu fiican gurigaaga ku sameeyso ilmaha caafimaadkooda naftaada caafimaadkeeda saasa u marsan kartaa mukaatigaaga canjeerada marsan kartaa wax Allah waxa u baahan tahay marsan kartaa waana kaaga badan yahay kan magaalada yaala kan aad sameystaa ka badan kaaga baraka badan guriga ku yaala markuu kaasi dhamaana waa sameysanay waalkaas camal aan ku shubanay waal yar ku shubanay fridge ka gashanay inta rabta isticmaalay marka ani hadda saasa u sameystay soo tijaabiya si qurux badan ajiib ah oo ku soo baxaya soo tijaabiya insha Allah waa ka heli doontaan marka channelkan subscribe ha la yidhaahdo idinkoo mahadsan inta fiirstiin ha ka tagina share iyo like dhiirigelinayna tahay ita waliba aniga ahaanteeda maxaa la jiray qof aad dhiirigelinaysan oo garab haysanin yani geesi ma noqdo qofku waa inuu dhiirigelin haysto oo garab haysto marka soo dhawaada marka la mar saddexaad
haddana saana ku dhameynaynaa mukaatigeena 4 xabo camal aan marinayaa marka 4 xabo camal mariyo 3 xabo camal miya marinaya kabacdi waxaan rabaa inaan weelkaas ku shubto weelkaas waa weel caag oo Nutella ka isticmaalay Nutella mid caaga daarto isticmaali kartaa midaan kale oo rootiyaalka la marsada ayadana waa isticmaali kartaa marka tan ayaa hore soo isticmaalay marka weelkan waa ku shubtaa Nutellooyinka ku shubtaa marka aan karsado ama isticmaalo aan ku shubtaa marka fridge-kaaga la gashanaysaa wax problem iyo wax shida midna ma lahan taasoo noqday hilmaama baaquli kale tan ku shubay oo fridge-ka la geliyay waa hilmaama qof oo hadda wuxuu sameeyay haddana hore ka hilmaamay ma aragtin idinka adduunka ilaahay marka hadda anyway saas hadda Nutella noogu dhantahay qaybta kala soo hartay waxaan u reebay qaybtan inaan keega kor uga shubo markaan keega kor uga shubo waxaan macaanka ugu yareynayo waxaan rabay Nutella inaan ku shubo marka Nutella waa ku shubay maxaa dhahaa waxaan rabaa keega inaan kor ka mariyo si qurux badan aan loos kaga daadaaday kaga sharaxo aan fridge-ka geliyo ilaa 5 minutes keega qaboow waaye uu soo qaboobay mar hore intaan Nutella sameeyay waxaan sameeyay yuu dhulka yaalay iska qaboobayay markaan hadda tan dhameeyo oo looski iyo waxa ku daadaadiyo waxaan sameynayaa maxaa dhahaa wixii sheegi rabay waxa gelin rabaa fridge-ka wuxuu ku soo jirayaa ilaa 5 minutes wax badan ma ka rabo qaybta hoose oo qabowga gelinaysa ilaa 5 minutes camal uu ku jirayaa bas ka soo bixinaa insha Allah sidoo ku soo baxanay waa isla arkeynaa marka looskaas waxa ka rabaa sharaxaad decoration ahaan ka rabaa hadii aad rabin waa iska dhaafi kartaa laakiin saas aan jeclaystay in wax yar isoo yara qalalan rabaa haddana wuu soo qalalay waan jarjarayaa saxanka saaranayaa sida uu ku soo baxay looskaas iyo Nutellagaas wax kala daadanaya ma aha wax macaan badan waaye keega wax wadnaha ka qabanaya ma macaan badan maaha Nutellada sidoo kale idin naftirkeeda sokor badan ma qabto marka aad u macaan tahay wallaah soo tijaabiya idinka ka heli doontaane marka haddana wasaas ku soo dhameynay saxankeena saaranayna waa inta waan soo jaraya hal gabal soo bixinaya marka 2 gabal intaan soo bixiyo aan tusahay insha Allah marka asla socon insha Allah channel subscribe daha share iyo like comment inta muuqaalka xiga kulbayno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh